halkani waa BBC London saacadu Afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 5 galownimo oo goow kulan waxaana wanaagsan khiyaartana dhageysanaysaa meel walba joogtaan waa galab sabti 12 bisha May idaacadda waxaad ku maqli doontaan magaalada beledweyne ee Soomaaliya oo dadkii ku haray xalayto laga daadgureeyay markii fatahaad xoog leh xalay ay soo buux dhaafisay xaafadihii ugu roonaa ee magaalada oo kumanaan qoys oo horey u barakacay ay degan yihiin duleedka magaalada iyo tuulooyinka magaalada u dhow qaar ka mid ah ayaa maalmahan waxaa la gaarsiinayay gargaar 7,500 qoys ayaa loogu talagalay oo qof walba la siinayo $50 oo lacagta socodkeedu yahay $125,000 dalka Burundi kooxo burcada hubeysan ayaa waxa ay laayeen dad ka badan 20 qof iyadoo wadanka loo diyaar garoobay afti dadweyne oo la isku maandhaafsan yahay ra'iisul wasaarihii hore Malaysia oo toddobaadkan laga adkaaday doorashadii guud ee dalkana waxa loo diiday wadanka inuu ka baxo Kuuriyada Waqooyi ayaa aakhirka bishan burburinaysa bartii ay ka tijaabin jirtay nuclearkeeda magaalada Garowe ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay madaxweyne Gaas in uu kala hadlay colaadda gobolka Sool ee Puntland iyo Somaliland. I'm concerned by tensions between Puntland and Somaliland when it comes to Tukarak. Etoobiyana magaalada Qabridahar ayaa maanta degan kadib markii shalayta rabshado ay ka dhaceen waxa ay ka dambeysay gabar qoyskeedu uu sheegay inay ku dhimatay saldhigga booliska ee magaalada. doorashadii guud ee wadanka Ciraaq cidda la doortaa xal ma u heli doontaa mashaakilka diineed iyo kuwa kale ee wadankaasi ka ogan. daraasadna waxa lagu sameeyay ragga gaagaaban iyo ragga dheerdheer kuwa carab badan. galabta ma jirto tabinta tooska ah ee kubadda cagta oo berri oo axada ayaa horyaalka Ingiriiska la soo gabagabeynaya sidaa daraadeed berri ayaad toos ciyaarta u daawan doontaan wararkaas iyo waraysiyo kale oo Soomaalida iyo gobolka ku saabsan ayaad maqli doontaan saacadda soo socota halkani waa BBC London. حافظ عويل إسماعيلية برنامج كسودي ريو وحن سكوب لابنا ورك عالم كي بي بي سي دا واكن آذن سالمين ما سند عبد النور رئيس الوزراء عصوب ماليزيا مهاتير محمد أيا كسور رقي حيرات سفر كا رئيس الوزراء يحلك كلوريجي نجيب رزاق مرسيه الرئيسي يا مستر نجيب وحا او غوستي تيجد إنه وجود دولة إندونيسيا كدي مركي لغات كادي دورشدي أربعدي مستر نجيب waxaa lagu eedeeyay in uu leexsaday $100 milyan oo ka yimid maalgelinta qaranka sanadkii 2015 hase yeeshee mas'uuliyiintu ay ku waayeen wax qalad inuu sameeyay laakiin Dr. Mahathir ayaa waxa uu sheegay inuu dib u bilaabayo baaritaankaasi Mr. Najib waxa uu diiday eedahaasi oo dhan dhinaca kalena Mr. Mahathir ayaa waxa uu bilaabay inuu buuxiyo boosaska muhiimka ee dawladdiisa isagoo magacaabay wasiiradiisa cusub ee gudaha difaaca iyo maaliyadda. Now we decided to appoint the ministers of finance. haatan waxaan go'aan ku gaarnay inaan magacaawno wasaaradaha kale ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda difaaca iyo wasaaradda arrimaha gudaha magacyada saddexdan wasiir ayaa kale ah wasiirka maaliyadda waxaa noqonaya Mr. Lim Guang waxaana ka soo jeeda xisbiga Democratic Action Party wasiirka difaaca waxaa sidoo kale noqonaya Maxamed Saabu oo ah madaxweynaha xisbiga UMNO halka Muxyidiin Yaasiin uu noqon doono wasiirka arrimaha gudaha. Minister the President of Amana who is Ahmad Sabu and then isla wararka ka imaanaya dalka Malaysia ayaa sheegaya in gabadha uu dhalay siyaasiga maxbuuska ah Anwar Ibrahim inay sheegtay aabaheed in la soo dayn doono xabsiga laga soo dayn doono maalinta Talaadada. Mr. Anwar ayaa xabsigaasi waxa uu ku jiray muddo 5 sanadood ah iyadoo eedeymo lagu soo ogay kuwaas oo uu sheegay in dhammaantood ay yihiin kuwa xagga siyaasadda oo wax dambi aan u lahayn. Mahathir Mohamad ayaa waxa uu sheegay boqorka wadankaasi inuu ogolaaday in cafis loo fadiyay Mr. Anwar waxaana Mahathir uu sheegay inuu awood ahayn doono muddo 2 sano kadibna uu ku wareejin doono Mr. Anwar. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inay ku marti qaaday quburo iyo warbaahinta caalamiga ah munaasabad muddo 3 maalmood socon doonta oo bilaaban doonta bisha May 23keeda inay marqaati ka noqdaan burburinta goobaheeda nuclearka. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa laga qaaday xayiraadii ka saarneyd inuu qabto xafiis dawladeed. maxkamad ku taala magaalada Milan ayaa waxay amartay in dhaqan celin loo sameeyo inkasta oo lagu helay wax isdabamarin canshuureed oo lagu xukumay 4 sannadood oo xariga taas oo ku filan in markaasi xayiraad la saaro.
qareenadiisa ayaa waxa ay sheegeen in qaanuunka xayiraadaasi ku soo rogaya kuwa xadgudubyada lagu helaa inuu soo baxay kadib markii dembiga lagu helay isaga, taasoo aan lagu dabaqi karin in dib loo soo celiyo. 81 jirkan ayaa waxa uu haatan hogaamin doonaa xisbigiisa Forza Italia doorashooyinka cusub haddii wadahadallada u soconaya isbahaysiga cusub iyo gaar ahaana isbahaysiyada kala duwan ee dalkaasi uu burburo. dowladda Burundi ayaa waxa ay sheegtay 26 qof in lagu dilay intii uu socday weerarkii lagu qaaday waqooyi galbeed ee dalkaasi. wasiirka ammaanka ayaa waxa uu sheegay kuwa weerarka soo qaaday inay ahaayeen argagixiso ka soo tallowday xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo mucaaradka qaar ay musaafiris ahaan ugu maqan yihiin oo saldhigyo ay ku leeyihiin. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen kooxda weerarka soo qaaday in ay guri dadka ugu tooganayeen oo tooreyna ay la dhacayeen dhibanayaasha, guryihiina ay dabaqabadsiiyeen. rabshadahan ayaa imaanaya ka hor aftida qaran ee lagu muransan yahay ee dalkaasi ka dhacaysa, taasi oo loo arko in madaxweyne Pierre Nkurunziza inuu awoodda ku sii joogo ilaa iyo sanadka 2034. dalka Ciraaq ayaa u codaynaya doorashadii ugu horeysay ee baarlamaantan iyo markii dalkaasi uu ku dhawaaqay inuu ka guuleystay kooxda sheegata dowladda Islaamiga. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Abadi ayaa waxa uu markaasi sheegay in uu ku guuleystay, taas oo ammaan iyo bogaadin loogu soo jeediyey hogaamintiisa ku aadan dagaalka looga soo horjeedo maleeshiyaadka. laakiin ciraaqiyiin badan ayaa rajo xumo ka muujinaya musuqmaasuqa dowladda iyo xaaladaha dhaqaale ee dalkaasi ka jira. xaaladda ammaan ayaa aad u soo hagaagaysay tan iyo markii IS laga saaray magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar, laakiin maleeshiyada ayaa waxay weli khatar ku hayaan deegaanada qaar, iyada oo 2 ruux oo doonayay inay ismidaamiyaan oo qaraxyo isticmaalaan ay dhinteen kadib markii ay isku diyaarinayeen in ay bartilmaameedsadaan xarun doorasho ku taalla gobolka dhexe. magaalada Baghdad, degmada Sadra City, qof codkiisa dhiibanayay ayaa ka hadlay rajadiisa ku aadan dalka. اليوم نطمح بهذا الانتخاب انه ما نحتاج الى دبابه والى طائره ولا نحتاج الى اي شيء. maanta ujeeddada ka dambaysa doorashadaani waa in lagu saxo hannaanka dimuqraadiyadda. uma baahanin taangiye iyo diyaarado dagaal. waxaan u baahannahay oo keliya waxa weeye in waraaqaha lagu codaynayo lagu kala baxo, taasoo lagu saxayo hannaanka siyaasadda oo ay kharribeen kuwii dalkan Ciraaq xukumi jiray. waxaana rajaynaynaa hogaamiyaha cusub ee la dooranaya xukunka inuu ku qabto doorashada tan. dhab ahaantii doorashada tani waa aroos dimuqraadi ah. بهذا العرس الديمقراطي الانتخابي. warkii oo intaasi ku eg aan dib u ka celiyay Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. waa tahay aan ku bilaabo wararka Soomaalida magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo 100,000 oo qof magaalada ay ku noolaan jireen. hay yeeshee dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay fatahaado xaafadihii magaalada qaaday ay barakiciyeen dadkii kuwii ugu dambeeyey oo isku adkaynayay meelo yar oo magaalada ka mid ah. xalay iyo saaka hiradii khasab waxaa ku noqotay halhaleel in loo dadgureeyo kadib markii ay aad u kordheen biyaha ku qulqulaya magaalada. dhowr qof oo aan teleefonka kula hadlay waxay ii sheegeen qiyaastooda cid magaalada iminka gudaheeda ku hartayba inaanay jirin. kumanaanka qoys dhooban deegaanada duleedka magaalada ka ah sida ceel jaalle iyo tuulooyinka ceelgaal ilaa iyo halgan ayaa qoysaskana cusub ay ku biireen. waxaa socda dadaallo lagu gargaaraya dadkaasi oo lagu gurmanayo, gacanna lagu siinayo dadkaasoo ay isugu jiraan hay-adaha gargaarka iyo maamulada iyo isla mar ahaanta shirkadaha. hay-adihii ugu dambeeyey ee dalkaasi gargaarka u geeyay waxaa ka mid ah xawaalada Ammaana oo madaxa xafiiskeeda magaalada Beledweyne Xasan Ibraahin Xalane teleefonka aan ku wareystay. walaal xawaalada Ammaano nasiibo kasta oo dhacdo waxaa samaysaa gurmada ay samaysaa. 3 maalmood ka hor ayaa waxaana lagu amray inaan shaqay samayno oo sahan samayno. alcamuum Ammaan waxay hawl bilowday maalintii Arbacada, waxayna ugu tala gashay taas dhibaataysan ee banaanka magaalada yaallo ee dayacan. waxa weeye 2,500 oo qoys ayaa loogu tala galay oo qof walba la siinayo $50 oo lacagtaas oo cadadkeedu yahay $125,000 oo qaybinteedu ay bilaabatay maalintii Arbacada ilaa Khamiistii socotay wareejkeedu. marka ma deeqdii ugu horeysay iyo gargaarkii ugu horeeyay oo fatahaaddan aad ka geysataanba Beledweyne? hadda socdo waa tallaabadii si Ammaana bilowdo. waa tahay marka xaggee ku qaybiseen marka deegaanadee ka qaybiseen? waxaan ka qaybinay boqolkiiba 80 ayaan ka qaybinay. inta
kalena maxaa feeriya magaalada asaasida intaas ayaan ka qaybinay. marka ceel jaalaad ka qaybiseen oo ay dhuuban yihiin qoysaskii faraha badnaa ee magaalada ka soo qaxay marka qoysas intee leeg baa lagu qiyaasay hadda ceel jaal inay degan yihiin? ma aha wax la koobi karo, ma aha wixii magaalada deganaay oo dhinaca bari deganaay 100% ama 99% ayaa degan cid kiro koob la gaaraysa walaal. waa tahay dadku marka dhibaatada ugu weyn oo hadda ay qabaan maxay tahay oo is leedahay lacagtii aad qaybiseen maalmaha kan waa u mudan tahay ama waa anfacaysa? dadku qof waxa uu haystaa raashin ma haystaa iidaan, qof wuxuu haystaa iidaan raashinkii ayaa ka maqan. dabcan waxaa laga yaabaa qofka baahidiisa runta ataaba karo lacagta kaashka oo la siinayo oo baahida oo markaas hayo aan caruur aan ugala ama wuxuu wax lagu kari lahaa ha noqoto aydiisa dhabta ah waxa taaban tahay kaashka oo la siinayo. xasan dadku meel cidlaahay dhuuban yihiin baa tiri haddana lacag baad siiseen miyaysan dhaamin inaad raashin iyo wixii kale oo raashinka lagu karsan lahaa iyo wixii oo dhan oo diyaar u ah aad u keentaan? awoodda ammaano dabcan fayska koobaad wuxuu ahaa fayska emergency ah dadka in la gaarsiiyo lacagtaas dabcan dadku waa wataan bacayaashan yihiin qof walba waa isku talagalay laakiin ahaan ayay aad u liidato dadka. tiradii guud marka lacagtii aad arbacada iyo khamiis iyo jimcihii aad ku deeqdeen meeqay ahayd? waxay ahayd $125 waxayna gaar 2,500 oo shanta qaaradood ee caalamka. dadka Soomaaliyeed ee jooga masiibada maanta taala balad ma aha mid heer gobol iyo waa caalamiya. Soomaaliya meel kasta oo joogto waxaan leeyahay dadkaas walaalihiin oo dhibaatadu hayso maanta waxay u baahan yihiin badbaado, birina waxay u baahan yihiin dib u dejin. magaaladii dhammaanteed waa baabaaday marka baahida maagan iyo midda mustaqbalka oo dib u dejinta Soomaaliya ha u soo gurmato reer Beledweyne. intaas ayaan raacinayaa waa baaqka iga tahay. xasan ibraahim xalane oo ah madaxa shirkadda xawaalada ammaana oo teleefonka magaalada muqdisho igu waramayay dhowr dhageystay ayaa fatahaaddan iyo dareenkooda ka soo hadlay. waxaa ka mid ah liibaan maxamed shirwac oo jooga magaalada muqdisho wuxuu yidhi aad baan uga xumahay waana in lala qaybsada dadka reer beledweyne dhibaatadaas fatahaadda waayo soomaalidu iscaawinta ayay aad ugu fiican tahay oo lagu yaqaanaa. cabdirashiid maxamed cumar oo boorama joogaan wuxuu yidhi fatahaaddan ka dhacday magaalada beledweyne waa wax laga xumaado inkastoo maqaadiir alla tahay waxaana loo baahan yahay buu yidhi in lagu cashar qaato musiibada tan. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london. isla Soomaaliya meelo ka mid ah deegaanada Puntland oo abaartii ugu dambeysay ee wadanka ka dhacday dad fara badan ay ku xoolo beeleen ayaa in badan dani waxa ay baday magaalooyinka inay iska soo galaan. waxa ay bilaabeen inay ka xoogsadaan xirfado si gaar ah haweenka u khuseeya sida kuwa cawda falkiya oo ka soo saara nolol maalmeedkooda. waxaa ka mid ah gabdhahaasi Aamina Maxamed oo magaalada Garowe ugu warantay wariye Axmed Cawil Jaamac. hawdatan waxa weeye gabadhaas saale gabadhaasaan ka qaadnaa xaq dhowdhow baan ka qaadnaa waa feeraa xaqmaanu ka xidhnaa hadana shaahayagaan ka dooranaa maxaan ku radaa wax qabad aanu qabanana waa nooc cawda hada waa garta markii maxaa ka shaqeyn jirtay waagi hore iska xoolo dhaqataan hadda xoolo dhaqatada ka caydhooba maan waa garta xagee hadda deganta waxaan deganahay buuraha reer baadiyaha jilab aanu deganay waa garta xoolaha ku jooga may xoolay ma joogaan wax iska sugaanuna dadka dawladda iyo hay'adaha iyo waxaasan wax ka sugnaa bilaahay haduu noogu soo dhiibo waa garta waa sida marka shaqadan iyo kugula taliyay hadda kulay shaqo adag ba qabataa shaqada waxay cid kale iguna taliyay waxa weeye waxa kale aan qabtaan weynay badeedna waxa weeye gabadhaas waxay tirnaa baan keenay cawdaas aan rabaa in la ii qabto cawdaasaan marka sameeynaa oo qabanaa oo xaqmadaasaan xidhnaa. marka xirfadda ma hore baa u taqaanay inaad xaqmadan iyo xirxidin mise waa lagu tusay ma xirfadda horaan u qaadanayo maxaan ku radaa aan dad tustus lacag ma ka heshaan lacag xoogaa iska shaaha baan ku helaa. marka sidii hore xaaladdiinu ma dhaantaa oo waagi aad shaqaysan jirin oo aad guriga xoogaa shaaha goortaan maalinta qaataa waa ku dhaqdhaqaaqa laakiin wax macnaha waaweyn maaha waa wax iska shaaha waxa ay ka dabilo waxay iga dabartaa maalinta aan soo qaatay wax iga dabartaa wax sii fogna maaha. ma rabtaa inaad shaqadan sii badisay si aad xoolo badan u siiso haddii ilaahay idmo markii macnaha aan ka sii barmooso waa rabaa insha Allah waan shaqada waa sii badinaya haddii Allah idmo. waa garta bal ka waran xoolahaaga iyo intii la ekaayeen wallahi waa badnaayeen
dhowr tiray ahaayeen ariya iyo awr hadda dhammaaday iyaguna baaba hadda maanta halkaasaanu ka fadhinaa jila baanu ka fadhinaa carruurtuna imisa 8 aabahood mee aabahood waa agoon waa gartay marka cid hadda idin gacan qabato oo idinka warqabto ma jirtaa may cid hadda naga warqabto oo naga gacan qabataa hadda ma jirto gabadhaas ayaa magaalada Garowe waxa ay ugu warantay wariye Axmed Awil Jaamac waa Aamina Maxamed oo kamid ahay dadkii abaartii ugu dambeysay ay xoolahoodii dhaafisay oo magaalada yimid oo nolol maalmeedkooda ka raadsada halkaad nagala socotaana waa London waa tahay sidii mar laweyd warkaad ku maqlayseen waddanka Malaysia ra'iisul wasaarihii hore Najib Razak oo toddobaadkan lagaga guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday waxaa lagu wargeliyay waddanka inuusan ka bixi karin intaa loogama harina waxaa la baarayaa lugtii uu ku lahaa fadeexada lacageed oo lagu qiyaasay $10 milyan markii horeysana waxaa soo baxay warar ku tiri ku teenahay oo lahaa Najib iyo xaaskiisu waxay doonayeen waddanka inay ka baxaan mar dambe isaga ayaa waxa uu sheegay inuu fasax dibadda ku tagi lahaa hasaate iminka waddanka uu iska joogi doono haddaba faahfaahinta warkaas waxaa isku soo dubariday oo isha soo mariyay dhalo socodsiinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil sharcigan inaanu Mr. Najib dalka ka bixin ayaa lagu soo rogay in yarun kadib markii uu ku dhawaaqay inuu fasaxa u baxayo si uu uga soo nasto saamayntii doorashadii laga helay maalintii Arbacada. Dad careysan ayaa isugu soo baxay madaar u dhow magaalada Kuala Lumpur kadib markii amarkan iyo weliba in lagu samaynayo baaritaan fadeexad la xiriira balaayiin dollar oo musuqmaasuq ah dibadda la soo dhigay. Markii doorashada laga helay ayuu Mr. Najib ka sheegay shir jaraa'id inuu iska casilayo xilka madaxweynenimo ee xisbiga UMNO iyo weliba gudoomiyaha guud ee xisbiyada isbahaysiga ah. Hadaladiisina waxa ka mid ahaa xisbiga UMNO iyo isbahaysiga Barisan ayaa guuldarro culus soo gaartay sidaas darteedana anigoo ah madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga Barisan National waxaan go'aan ku gaaray in aan iska casilo jagadii madaxweynenimo ee xisbiga UMNO sidoo kalena waxaan iska casilay jagadii gudoomiyaha isbahaysiga guud ee Barisan National laga bilaabo xilligan aynu hadda joogno. Mr. Najib ayaa waxa kale oo uu sheegay in xisbigooda ay aqbaleen go'aankii ay shacabku qaateen in laga guuleystayna ay keeni karto fursado isbedel oo wanaagsan. dhammaanteen aad ayaan ugu xunnahay waxa dhacay balse maadaama aynu nahay xisbi aad u tixgelinaya mabaadi'da ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda waxaan annagoo qalbigeena furan yahay aqbalnay dhammaan go'aamada la gaaray. laga yaabaa in arrintan ay fursad inoo siinayso inaan wax kaga beddelno meelaha aan ka jilicsannahay. sanadkii 2009 ayuu Mr. Najib ku dhawaaqay inuu magaalada Kuala Lumpur u bedeli doono xarun ganacsi dhaqaalaha oo uu kor u qaadi doono isagoo isticmaalaya istiraatiijiyad maalgelin laakiin ra'yigaas ayaa laga biyadiiday kadib markii la ogaaday inaanay dowladdu bixin $11 bilyan oo ay bangiyo iyo dad maalgashi sameeyeen ku yeesheen. dhinaca kale jariirada Wall Street ayaa daabacday inay arkeen muuqaallo iyo waraaqo muujinaya inay lacag ku dhow $700 milyan ay gaadhay kootada bangiga uu khaaska u leeyahay Mr. Najib. cabdixaafid aad buu mahadsan yahay markan aan ku noqdo wararka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku qaabilay xafiiskiisa magaalada Garowe wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. arrimaha ay ka wada hadleen waxaa ku jiray baa la yiri xaaladda ka oogan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool iyo doorashooyin ku soo foolay Soomaaliya amniga guud iyo qodobo kale. dabeetana wadajir waxay u qabteen shir jaraa'id oo uu joogay wariye Axmed Awil Jaamac oo nooga soo warramay. kulankan waxaa labada dhinac diiradda ay ku saareen arrimaha Soomaaliya xiisadda u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan Tukarraq. shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen ma jirin wax su'aal ah oo warbaahinta loo ogolaaday in ay mas'uuliyiinta ay weydiiyaan hase yeeshee madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo Puntland. waxaan ka wada hadalnay geed socodka nabadda Soomaaliyeed waxaan ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada iyo amniga dalka waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta iyo sida Soomaaliya hore u socon lahayd iyo arrimo runtii muhiim u ah waxaanan ka hadalnay ma jiraan runtii dabcan waxa weeye shaqadiisa caadiga ahayd dalka meelo badan oo kamid uu ku tagtagayay anagana de wanaag bay noo ahayd waxaan maraya markii u dambeysay waxa ka soo wartay 6 bilood noo yimaado marka wixii isbedelay dalka ka dhacay baa ugu muhiimsanaa
iyo muhiimadda ay leedahay federalismka iyo dastuurka iyo constitutionka iyo wax walba kulle waa ka wada hadalnay marka guul bay noo ahayd wadahadalka iyaguna runtii wuxuu ahaa mid ku dhacay jawi wanaagsan ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo la rumaysan yahay in safarkiisu uu ku qotomay xiisadda ka taagan Tuqaraq ayaa tilmaamay in ay Puntland isla la fugureen adkeynta nabadgelyada gobolka iyo sidii xasiloonida loo ilaalin lahaa. aad ayaan ugu faraxsanahay in heshiiska gaalkacyo ay dadka shacabka ahina ay aad uga faa'iidaysteen warwar ayaan ka qabaa xiisadda Puntland iyo Somaliland ee Tuqaraq waanu ka wada xaajoonnay weliba waxaanu ka wada hadalnay xasiloonida guud ahaan dalka iyo weliba Puntland. Michael Keaton ayaa xusay in ay Puntland qayb muhiim ah ay ka tahay Soomaaliya isla markaasna ay isla soo qaadeen xaaladda guud ee mandaqada doorashooyinka 2020 iyo shirka madaxda maamul goboleedyada uga furmi doona magaalada Baydhabo as well as the upcoming political processes including the preparations for the waxaanu kale oo aanu ka wada xaajoonnay geed socodka siyaasadda oo ay ka mid tahay doorashada guud ee dhacaysa 2020 iyo doorashada ka dhacaysa Puntland waxaan ka mahadnaqayaa wada hadalladan midhaha leh aad ayaan u soo dhaweynayaa mar walba iyadoo ay jirto xaalad amni qaabka ay nabadda ugu dadaasho Puntland qaramada midoobeyna diyaar ayay u tahay inay Puntland kala shaqayso ahmiyaddeeda the people of Puntland to achieve the many objectives that you have. labadan mas'uul ma isa soo hadal qaadin khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo Puntland kaasi oo ka dhashay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya oo xumaaday. aad buu mahadsan yahay wariye Axmed Cawil Jaamac iyo warbixintaas uu nooga soo diray magaalada Garowe halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC London. dadweynaha waddanka Ciraaq maanta waxay codkooda ka dhiibteen doorasho guud waa tii ugu horeysay tan iyo markii la jabiyay mintidiinta Daesh ha yeeshee dad yar ayaa filaya in hogaamiyaha cusub ee la dooran doono waddanka uu wax weyn ka bedeli doono uu xasilin doono marka la eego colaadda dadka u dhaxaysa dhaqaalaha oo liita musuqmaasuqa dhacayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga riday Saddam Hussein 2003 Ciraaq marka laga soo tago sida diinta loogu kala qaybsan yahay iyo siyaasadda waxaa kale oo haysta loolan ah sidii wax looga qaban lahaa dagaalkii Daesh 3 sano ee la soo dhaafay waddankaasi ka socday oo lagu qiyaasay Ciraaq inuu uga kacay $100 bilyan haddaba doorashada Ciraaq iyo rajada laga qabo falanqaynteeda waxa aanu wax ka weydiinay Dr. Sacad Sheekh Cusmaan oo aanu ka wareysanno arrimaha carabta iyo dunida muslimka wuxuu u warramay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh oo weydiiyey bal rajada Haydar al-Abadi waa ra'iisul wasaaraha iminka uu ku soo noqon karo doorashadan mar haddii guulo uu ka soo gaaray dagaalkii Daesh. waa arrin caqliga gasha weeye haddii dadkiisa u arkay dagaalku la galay Daesh mid Daesh wax yeelay inuu yahay runtii markaa isagu waa mid uu ku mudanayo ama xaq ugu yeelanayo dadku inuu support gareeyo ama uu gacan siiyo sida la filayo war looma hayo intaan anigu ogahay prime minister ka horeeyo oo la oran jiray Nur al-Maliki ayaa soo noqon laakiin nimankii culimada ahayd ee shiicada ahayd way diideen isaga ayay gacan siiyeen haddii doorashadu dhacdo oo si wanaagsan oo sharaf leh u dhacdo oo uu soo noqdo waxaan u malaynayaa Ciraaq wax badan inaanay ku wayeen laakiin wax badan ka helayso qoliyaha sunniyiinta ayaga xaggee jiraan sunniyiintu dhinac walba waa joogaan sunniyiinta waa laga badan yahay in badanna way xukumeen dalka waxaan u malaynayaa maanta waa qaybsan yihiin hadday se qaybsan yihiin anigu inta aan warka aan akhriyo iyo wararka Ciraaq aan ka maqlo intooda badan xaqiiqaday la socdaano waxaa laga yaabaa inay ninkan siiyaan Haydar al-Abadi inay siiyaan boodkooda waxaad ku dartaa culimada shiicada Ayatollah Ali Sistani oo kale oo nin aad iyo aad ahamiyad u leh oo ninka dee sheekha shiicadii aad iyo aad buu u taageersan yahay prime minister Haydar al-Abadi. Dr. Sacad xukuumadda hadda jirta ee ra'iisul wasaarahaas Haydar al-Abadi uu madaxda ka yahay waxyaabaha aadka loogu eedeeyo waxaa ka mid ah musuqmaasuqa gaar ahaan xagga saliidda taa maxaad nooga sheegi kartaa horta waraynu ka hayna oo anigu aan shakhsiyan ka hay laakiin waxaan akhriyay iyo waxaan dunida carbeed saxaafadeeda ka arkaa waxa weeye musuqu wuu jiraa musuqaasi runtii wuxuu bilaabmay maalintii Ciraaq ciirtay ee Saddam Hussein meesha laga saaray kii ka horreeyay isaga Nur al-Maliki ninka ugu musuqa badan buu ahaa dawladdu iyo dadkii dawlad burburtay oo baabaaday oo dadkii wax haystay ay dhinteen ama ay baabayeen dib u dhiskeedu had iyo goor musuq lagama waayo taasina ma aha mid uu prime ministerka maanta joogaa kelidii qayb u qaadan karo dawladda Iiraan
doorkeeda waa sidee marka laga hadlo doorashadan maanta dhacaysa iyo guud ahaan siyaasadda dawladnimo ee dalkaasi? iiraan aad iyo aad bay ugu leedahay saamayn dowladda ciraaq maanta ilaa maalintii dagaalkani bilaabmay ee Saddam Hussein la tuuray. aad iyo aad bay iiraan u saamaysaa siyaasadda ciraaq. kii ka horreeyey prime ministerkeenu ku hadlay karaynu iminka ku sheegnay Nuuri al-Maliki iyo isaga nin ka baxsan karaa taa ma jiro ilaa maanta, ilaa ciraaq ay cagaha isku taagto oo dabadeedna iyadu dowlad cusub oo xooggeedii ilaa ay noqoto. aad buu mahadsan yahay Dr. Sacad Sheekh Cusmaan. halkaad nagala socotaan waa London. magaalada Qabri Dahar oo maanta degan rabshado shalay ka dhacay kadib iyo imtixaanadii dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland oo bilowday ayaa noo soo socda. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. dalka Burundi waxaa lagu dilay dhanka waqooyi galbeed 23 qof. waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen kooxo burcada oo warkaasina mar dhow ayaan u gelinay waa uu noo soo socdaa. saate sida aan idin sheegay maanta waxaa degan magaalada Qabri Dahar ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii amniga ay la wareegeen ciidamada federaalka. xiisad ayaa ka dhalatay gabar 18 jir ah oo qoyskooda ay sheegeen in ay ku dhimatay saldhigga biliiska ee magaalada qadar yar kadib markii gabadhaasi la xiray. rabshadihii ka dhashay ayaa warar kala duwan ay ka soo baxeen, isla mar ahaantaana horseeday in dad badan la xirxiray. cali cabdulle fiixiye oo cali shucaac ku magac dheer oo gabadha dhimatay allah u naxariistay awowgeeda kana mid ahaa odayaasha magaalada Qabri Dahar ayaa sida waxay u dhaceen taleefanka aan ku weydiiyey maanta marsii horeysay. waa Taysiir Umar Food Maxamed Almi Salal iyo gabadhu waa 18 jir, suuqay u baxday, adeeg bay soo qabanaysay, waa la soo qabtay, booliska la geeyey. 20 daqiiqo ka bacdina waxaa la kaalay meydkeeda qaata, iyaga baa soo qaado xaafadii keenay, haddana way ka daba yimaadeen. waan qaadaynaa baa la yidhi, idinku feermeeya inay gabadhu way istishay, inay istisho feermeeya. shacbigii baa marka gadooday magaaladii oo dhan oo gaadiid badanna lagu burburiyey. annagu de qoys ahaan dad shacbi ah meesha naga joogay, haween baa joogay, waa la diiday in la feermeeyo. gabadha hadda suuqaad ka kaxaysayna booliska tagtay idinkaa dilay baa la yidhi, haddana inay qaataan bay dabcaan oo ka qaadaan xaafadii ka qaadaan meydkeedii marka inay qaadaan dabcaanna waa loo diiday. waxaa ku yaalay gabadha ogadeeda 4 farood oo xadiyo waaweyn leh oo cunaha lagu qabtay iyo suulkii oo sidiisii ah, siligii lagu dabay oo xadhigiisii raadkiisii iyo farahaasoo laysugu daray baa ku yaalay. marka dhakhtar miyaa arkay oo caddeeyey gabadhan in ceega lagu dhigay oo ceegadaasay u dhimatay? dhakhtarkii baa yimid markii meesha buuq ka dhacay, qoladii federaalka ayada askarta ahayd dhakhtarkooda yimid. gabadhu inay cunaha u dhimatay oo la dabay buu sheegay. markii intaa la sheegayna dadkii markaas buuqa bilaabay. hadda gabadhii meydkeedii iyo meeda iyadii hadda gabadha xalay 10 saacda federaalku aasay, dowladda federaalka ciidamo ka socdaa yimid, shacbigii odayaashii baa loo yeedhay. waxaa la gabadha meydkeeda ka soo qaada xaafadda, habeennimaan aaseenaa si aan maanta oo kale aan meydka intii la qaada buuq u dhicin oo dagaalka shar oo kale u dhicin. odayaal adigu la kaxaysto noocaasa iyo kuwii federaalka ahba aasay gabadhii. waa tahay shalay buuq baa dhacay baa tiri, muxuu ahaa buuqa dhacay? magaaladii baa kacday, mana aanaan filayninba. dadku waa dad mar horeba iska bislaaday buu ahaa. dadka intaa tirada la eg yaa mar keliya ku wargeliyey gabadha inay dhimatay oo dhinaciina sida aad sheegaysaan la ceejiyey oo la dilay? gabadha markii ayadoo suuqa ka adeegaysa oo xaragoonaysa la qaaday, waa la wada arkayey. markii booliska ay tagteen la geeyey waa la arkayey. marka dambe la soo saarayna magaalo saaweyn maaha waa la arkayey. dadkuna dad awalba dibsanaa oo habeen walba lala baxayo ida
baadi oo kale aad moodaysa habeenba mid la baxaya buu ahaa dadka dhagaha una taagnaa gabadhi marka meydkeeda la keenayba magaalada oo dhan bug baytay warka wuu isla gaadhay iminka marka maxaad ku wada xaasheen idinka iyo ciidamadii iyo madaxdii federaalka ahaa ee timid arrintii gabadha maxaad iska tirahdeen wax wada xaaleeda ma jiro halku dadka xadhanaa ku qof baa xadhan dadka jajabina qayb yara way soo daayeen dad ilaa 58 odayaalo jajban baa jira qabridaarna waa wadnihii gobolka inay usoo dhex gasho dowladda federaalka si degdega inay usoo gasho oo waxaan kala qabato oo booliskan iyo waxaan dadka leeya qabato ayaanu ka codsanayna waa tahay odaygaasi waxa uu ka mid yahay cuqaasha magaalada qabri dahar waa cali shucaac waxa uu ka hadlayey gabar uu sheegay saldhigga booliiska magaalada inay ku dhimatay dabeetana rabshada ay ka dhaceen waxaanu isku daynay tafaasiil kale in aanu weydiinno oo dhankooda iyaguna ay wax ka yidhaahdaan madaxda dowladda deegaanka soomaalida hase aatee waa noo suurtageli weyday waase dadaalka waa sii wadaynaa halkaad nagala socotaan waa b b c london xaggiina saacaddu waa 5:00 iyo bar galabnimo khiyaartan dhegeysanaysaay mar kale aan saalimiin ka codsado qodobada wararka caalamka kuwa ugu waaweyn bal inuu mar kalena xasuusiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka maleysiya mahaatiir moxamed ayaa ku soo rogay xayiraad safarka ra-iisul wasaarihii uu xilka kala wareegay ee najiib rasaaq marsii horeysay mister najiib waxa uu goostay tigid uu ugu duulo dalka indoneesiya kadib markii loogu adkaaday doorashadii arbacadii mister najiib waxaa lagu eedeeyey inuu leexsaday $100 milyan oo dollar dhinaca kalena mahaatiir ayaa waxaa la sheegayaa markaasi dhinaca kalena mister mahaatiir ayaa bilaabay inuu buuxiyo booska ama gaar ahaanna goobaha muhiimka ee dowladdiisa isagoo magacaabay wasiirada cusub ee gudaha difaaca iyo maaliyadda sida wararka kale ee ka imaanaya dalka maleysiya waxa ay sheegayaan oo in gabadha uu dhalay ninka maxbuuska ee siyaasiga ee anwar ibraahim inay sheegtay aabbaheed in xabsiga laga soo dayn doono maalinta talaadada mister anwar ayaa waxa uu xabsigaasi ku jiray oo uu ku qaatay muddo 5 sannadooda kuuriyada waqooyina waxa ay sheegtay inay ku martiqaadayso quburo iyo warbaahinta caalamiga ah munaasabad 3 maalmood socon doonta oo bilaaban doonta bisha May 23-keeda si ay goobjoogayaal uga noqdaan burburinta goobaheeda nukliyarka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa laga qaaday xayiraadii ka saarnayd inuu qabto xafiis dowladeed maxkamad ku taalla magaalada Milan ayaa amartay in dhaqan celin lagu sameeyo inkastoo lagu helay wax isdabamarin canshuureed oo lagu xukumay 4 sannadood xariga taasoo ku filan in markaasi la saaro xayiraad toosa dowladda Burundina waxa ay sheegtay 26 qof in lagu dilay intii uu socday weerarkii lagu qaaday waqooyi galbeed ee dalkaasi wasiirka ammaanka ayaa waxa uu sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay argagixiso ka soo talowday xadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo halkaas oo mucaaradka qaar ay musaafir isugu maqnaayeen saldhigyana ay ku leeyihiin سالمين أدبو محسن هي halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London imtixaanaadkii Puntland bal noo soo socda iyo warar kale oo ku saabsan bandhig dhaqan oo magaalada Nairobi ka dhacay hase ahaatee markan waa qiso kale doodaya qisadan ay dhalin kartaa ragga gaagaaban iyo kuwa dheer kuwa carab badan daraasada ayaa laga sameeyay Cabdixaafid ayaa soo arkay warbixintii daraasada studio ayuu iminka la fadhiyaa noo waran gaabow iyo dheerow kee carab badan cabdinuurow horta baaritaankan waxaa samaysay qolo reer holland netherland waxaana yidhaahdeen ragga gaagaaban inta dherarkoodii ka dhiman waxay ku buuxiyaan caro marka ragga dhaadheer way ka cadho badan yihiin marka tusaale ahaan yacnihii gaabnaanta awgeed waxaa u geeyaa cadho aada u fara badan ilaa 40 nin ayaa la tijaabiyey oo waxaa lagu tijaabiyey shilimaad iyo waxba adigu la yidhi eega waxa xaasaskoodii ayaa xagga dambe laga dhigay shilimaadka marka ragga gaagaabani shilimadii iyo wixii la dhigay iyo kuwa dhaadheer sida ay macnaha u kala garteen ayaa caladaas halka ka soo baxday laakiin arrinkaas waa arrin layskaga daba imanayo oo dee raggii gaagaabnaa in la yidhaahdo waxay ka cadho badnaanayaan raggii dhaadheeraa ma sahlana laakiin warbixinta meel waxaa jirta natiijadu ay muujinayso labadoodu tijaabooyinkii laga qaadanaysa waxba ku kala duwanayn laakiin nin psychologist ah oo la weydiiyey ayaa waxa uu muujiyey ragga gaagaaban xoogaa inay ka cawaansan yihiin
ragga kale waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdixaafid halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c london waddanka barma oo indhawaale aanu maqlaynay arrimihii ku saabsanaa dadka rohingaha ah iyo qaxoodii faraha badnaa ayaa waxaa ka dambeeyey ciidamada dowladda oo dhowr jabhadood oo ka soo horjeeday dagaalla ku qaaday waxaa ugu dambeeyey dowladda oo sheegtay 19 qof in lagu dilay weerar ay soo qaadeen jabhadda qolo ka mid a qolyaha waddankaasi degan ay leeyihiin dhinaca waqooyiga dalka waxaana ay ka dhacday waxay ka dhacday gobolka la yidhaahdo shan oo xuduudda waddanka shiinaha u dhow warbixin arrintan ku saabsanna waxaa noo haya wariyaha b b c da nick bek waxaana soo jeedanaya cabdifataax ibraahim cagayare cadaadiska iyo dhibka lagu hayay muslimiinta rohinja ayaa waxa ay qariyeen colaadaha kale ee muddada dheer ka soconaya gudaha dalka mayanmar weerarka saaka ka dhacay waqooyiga dalka oo ay geysteen fallaagada qowmiyadda tang ee doonaya inay helaan ismaamul hoosaadka ayaa la sheegay inay ku dhinteen 15 qof oo rayid ah iyo 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dowladda bama ayaa cambaaraysay weerarkaasi gobolka kajin ee dariska la'a meesha ay wax ka dhaceen ayaa sidoo kale qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in bishii lasoo dhaafay ay guryahooda isaga qaxeen ku dhowaad 5,000 oo qof oo u badan masiixiyiin arrintanna waxa ay timid kadib markii uu weerar cusub soo qaaday militariga bama taasina waxay sii adkaynaysaa in la gaaro tallaabooyinka ay sheegtay hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi ee ah in mudnaanta la siiyo nabadda aad buu mahadsan yahay cabdifataax ibraahim cagayare halkaad nagala socotaan waa b b c london markana puntland oo 15,000 oo arday maanta ay u fariisteen imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ardaydaas ilaa 100 goobood ayay imtixaanka ku galayeen macallimiin fara badan ayaana kormeer ka hayay wariye axmed cawil oo garowe jooga ayaa waxa uu tegey mid ka mid ah goobaha imtixaanka lagu qaadayay waxaana uu ka soo diray warbixintan abbaara 8 iyo barkii ayay ahayd markii guud ahaan gobolada puntland loo fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad iyo 12aad oo ay sanadkan gelayaan 15,000 oo arday wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland abshir ow yuusuf ciise ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardada imtixaanka gelaysa waxaana uu sheegay in ardada kaalimaha hore gasha ay heli doonaan deeqo waxbarasho oo dalka iyo dibadda iskugu jira 9 gobol ee puntland waxaa ka socda imtixaankii shahaadiga ahaa ay gelayeen fasalada afraad ee dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe ay gelayaan ardada tiradoodu waa 15,000 oo foorarka iyo eedadka ah waxay ku galayaan 100 xarumood oo ku baahsan 9 gobol ee puntland ay ka kooban tahay waxaa maanta diyaar u ah oo ka howlgalay 750 ilaaliye oo macallimiin ah waxaa kaloo ka howlgalay 150 kormeereba ka howlgalay in la isgarab taago oo lala shaqeeyo waayo waxa weeye waa arrin qaran weeye in dadka la shaqeynaya gacan buuxda laga siiyo weeye howlahooda loo fududeeyo lala shaqeeyo nabadgelyada si xasiloon la dhowro waayo waa wax tayada waxbarashada kor u qaada koow midda labaad ardaygu waa wuxuu ka helaa shahaado muctarif buu ka helaa midda saddexaad shaqo ku helaa midda afraad wuxuu ku helaa wax laga deeq waxbarasho ku helaa marka arrin sahlan runtii ma aha wasaaradda waxbarashaduna waxay xoog saartay waxa weeye imtixaanka isaga weeye inuu si nadiif ah ku baxo horeyna ugu bixi jiray waayo 12 sanadood ayaa la soo waday madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ardada imtixaanka u fariisatay u jeediyay khudbad iskugu jirta waano iyo hambalyo ku aadan guusha ay gaareen isagoona ku baraarujiyay in ay baqdinta iska ilaaliyaan waxa wanaagsan in intaasoo goobood oo puntland maanta ay ka dhacayso imtixaankii centralisirka ah ee sanadusgeedka fasalka 8aad iyo dugsiga sare way muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda iyo dowladda puntlandba ay sameeyeen in waxbarashadu ay gaarto gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba ee istaahisho iskuul in laga suubiyo waa guul u soo hoyatay puntland waa guul soomaaliyeed guul baan idin rajaynayaa niyadda khayr u sheega wejigiina farxad baa iga muuqata inaad baramuugaysaan guulaysanaysaanna waa ii muuqata insha allah mid ka mid a ardada dugsiga sare ee Gambool oo la hadlaya BBC-da ayaa dareenkiisa cabiray waxaan ahay arday dhigtay iskuulka Gambool magacaygu waa Axmed Faarax Axmed
axmed madoobe lagu naanayso run ahaantii waxaan ahay arday u fariisanaya imtixaanka foonfoorka waxaana dhammaan ardayda imtixaanka ay la gelayso u rajaynayaa guul insha allah dhammaantood waxaan leeyahay noqda arday isku kalsoon oo imtixaankooda ardada wejiyadooda waxaa laga dheehan karay cabsi ku salaysan imtixaanka ay gelayaan madaxweynaha puntlandna si rasmiya ayuu u furay waraaqdii ugu horreysay ee imtixaanka waxaana horjoogayaasha ku kala sugan goobaha imtixaanka lagu gelayo u dhacday hal fariina oo tilmaamaysa in imtixaanku uu furan yahay maxamed aad buu u mahadsan yahay dhowr dhegeyste ayaa facebook kaga soo ra'yi dhibtay waxaa ka mid ah xamde muuse oo joogta baran waxay soo dhoweysay ardada maanta imtixaanka u fariisatay ee 15 kun gaaraya waxaana u rajaynayaa baytiri imtixaanka in ay ka gaaraan guul iyo dhibco sare oo ay ka gaaraan imtixaanka maxamed cawil axmed oo boosaaso joogana wuxuu yidhi ardadaas imtixaanada u fariisatay waxay haystaan buu yidhi fursad dahabiya ardadan ha lagu dhiirigeliyo waxbarashada in ay sii wataan halka aad nagala socotaana waa b b c london wadanka ruwaanle burundi ayaanu u gelinay wararku ay sheegayaan dhowr iyo 20 qof in lagu dilay dhinaca waqooyiga galbeed ee dalka ee xuduudda la leh jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxaa loo haystaa inay ka dambeeyeen koox burcada wariyaha BBC-da Wilros ayaa ka warramaya waxaa soo jeedinaysa Firdawsa goobjoogayaal ayaa sheegay in burcad hubaysan ay guryaha galeen oo ay dadka tooganayeen sidoo kalena ay toori la dhaceen sargaal ku sugan gobolka Kibitoke ayaa sheegay in qoys dhan uu halkaasi ku dhintay kadib markii gurigooda dab la qabadsiiyey macadda cidda weeraradan qaaday hase yeeshee waxa uu weerarkan imaanayaa maalmo uun ka hor abtida uu muranka badan ka dhashay ee loo qaadayo dastuurka taasi oo laga yaabo in ay horseedaba in uu madaxweyne Pierre Nkurunziza xilka sii hayo ilaa 2034 kooxaha mucaaradka ayaa waxa ay wacad ku mareen in ay carqaladeyn doonaan aftidaasi go'aankii uu madaxweyne Nkurunziza ku gaaray inuu xilka mar saddexaad u tartamo sanadkii 2015 ayaa waxa ka dhashay deganaansho la'aan baahsan taasi oo tan iyo xilligaasi ay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof Firdawsa maxamed cilmi aad bay u mahadsan tahay wadanka Talyaanigana maxkamad ayaa waxa ay ka qaaday xayiraadii lagu hayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Silvio Berlusconi xayiraadaasi waxay ahayd xil inuusan ka qaban karin xafiis dawladeed waa 81 jir horey ayaa loogu helay wax isdabamarin dhinaca canshuuraha ah hase ahaatee xabsiga looma dirin warbixinta arrinta ku saabsanna waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Ciise Xaaji Cabdulle Silvio Berlusconi ayaa horey u soo hogaamiyay 4 xukuumadood balse inkastoo da'diisu ay tahay 81 sano jir weli hami ayuu ka leeyahay inuu xilka ku soo laabto waxaa laga mamnuucay inuu isu soo taago xil xafiis dowladeed ilaa sanadka dambe sida ku cad sharciga la magac baxay Severino sharcigaasi oo mamnuucis 6 sano ah ku shardinaya qof kasta oo lagu xukumo muddo xabsi ah sanadkii 2013 ayaa lagu xukumay muddo xabsi ah kadib eedeymo musuqmaasuq oo xagga canshuuraha ah balse xukunka xabsiga ayaa hoos loogu soo dhigay muddo sanad ah kaas oo lagu xukumay inuu qabto shaqo danta guud ah 4 jeer hore ayuu ra'iisul wasaare ka soo noqday Talyaaniga mar shanaadna waa uu doonayaa inuu noqdo oo hadda waxa uu doonayaa inuu ka qayb galo doorashada Ciise aad buu u mahadsan yahay iminkana wadanka Uganda waxaa jira kumanaan qof oo ka xoogsada goob cusbada laga qodo oo caana waxay ku taallaa harada la yiraahdo Katwe shaqaalahaas cusbada waxa ay ku farsameeyaan gacmahooda ma adeegsadaan qalabkan cusriga ah loogu talagalay waxa ka soo gala dakhli aan sidaas u badnayn oo nolol maalmeedkooda ay ku maaweelis isku dhaafiyaan hadaba wariyaha BBC-da Patience Tahurre ayaa tagtay deegaanka cusbada laga qodo warbixintii ay soo dirtana waxa soo jeedinaya Macaawiye Maxamed Buraale meel buura oo aan sida ugu fogeyn haradani waxaa ku yaala goobo lagu qodo cusbada ee halkan looga yaqaan Katwe waxayna u muuqataa dhul calaamada gaar leh markaad ku dhawaatid goobtan laga qodo cusbada waxaa kaga muuqanaya biyo sidii huruudda oo midabkoodu bedelmay waxaana goobtan lagu deeray alwaax qaababka loo saaro cusbadani ayaa in haweenka goobtan jooga ay cusbada ka soo ururiyaan salka hoose ceelka cusbada waxayna sidoo kale isticmaalayaan weel ay ku soo gurayaan cusbada waxaan goobtan laga qodo cusbada kula kulmay Rosi Nyakesiki oo 59 sano jir ah cusbada ayaa ku jirta wabiga hoostiisa cusbadan la soo qodo ayaa waxaa la siiyaa xoolaha waa inaan ka tashanaa sidii aan ku xiri lahayn geeskan oo ah meesha laga soo guro
mid ka mid ah haweenka ka shaqaynaya cusba soo saaridda ayaa kala saaraya cusbadii carrada iyadoona cusbada saafida ah soo dhigayso qarka goobta ceelkan laga qodo cusbada wuxuu ku yaallaa agaarka harrada halkaasoo howlaha cusba soo saaridda laga bilaabay taasina waxay dejinaysaa in cusbo badan ay ku ururto ceelka si cadceeddu ay u qayb qaadato qallajinta biyaha cusbada ee harrada cusbada halkan laga soo saaro waxay u kala baxdaa ilaa 3 qaybood mid budaha oo guryaha laga isticmaalo midda xoolaha la siiyey mid sida dhagaxaan oo loo isticmaalo warshadaha goobtan cusbada laga soo saaro 60% waxaa ka shaqeeya haween Nyakaisiki waxay halkan ka shaqaynaysay muddo dheer sida dad badan oo deegaanka ay xusuustaan dadka halkan ka shaqeeya gacmahooda iyo lugahooda way gashadeen dhaawacna waa ka muuqdaa waxaan leeyahay 4 caruur ah waxaan dhammaantood iskuulka ugu diray lacagta aan ka helo macdanka mid ka mid ah caruurtayda waa 20 sano jir wuxuuna ku biirayaa jaamacadda mardhow kuwa kale waa ay yar yihiin balse waxaan hubaa oo aan ku kalsoonahay in aan siin doono waxbarasho tayo leh qarniyo badan waxaa cusbada lagu soo saaraa qaab hal ah taasoo qoysas badan oo halkan ka shaqeeya noloshooda ku maarayaan Petronila Pira waa milkiilaha 3 goob oo loo qodo cusbada waxayna ka shaqaynaysay hawshani muddo 10 sano ah lugaha waxay ku xiratay waxyaabo ka ilaalin kara biyaha cusbada inta badan cusbada halkan waxaa laga soo saaraa harada Katwe waxaana loo dhoofiyaa dalalka dariska Nicholas Kagongo wuxuu ka tirsan yahay xarunta dalxiiska Katwe wuxuuna leeyahay bulshada deegaankani waxay ku faanaan kheyraadkan dabiiciga ah bulshada halkan ku nool waxay jecel yihiin haradani haddii la ballaariyo dhoofinta cusbadani laga soo saaro harada Katwe ee waddanka Uganda waxay u muuqataa in goob kasta laga heli karo cusbadani ma doonaysaa inaad ra'yigaaga ku biiriso falanqaynta mawduuca ugu weyn toddobaadka haddii ay jawaabtaadu tahay haa ha moogaan barnaamijka waxay la tahay ee BBC galab walba oo jimca ah waxaad kaga qaybgeli kartaa taleefonka ebereber 44 ama codkaaga ku duub ebereber 44 ebereber hal waxaa kaloo aragti ama su'aal wixii aad qabto aad ku soo diri kartaa qoraal kooban taleefanka ebereber 44 ebereber 9 ama BBC Somali Facebook iyo BBC Somali Twitter ka dhiibo aragtidaada barnaamijka waxay la tahay Ethiopia ku noqonaya tan iyo markii ay degtay xiisadii colaadeed ee dhex martay Soomaalida iyo Oromada siiba dhulka qaadku ka baxo ayaa indhawaale meelo badan waxa lagu arkay siiba magaalada Jigjiga oo aad u dad badan oo caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida in uu ku soo batay qaadka laga keeno ee dhulka Oromada haddaba chatkaasi oo la yiraahdo Adaway oo haatan ka hor la joojiyay markii dhibaatadu ay Soomaalida iyo ka dhex qaraxday iyo sida haatan uu magaalada ku yahay oo uu magaaladii buux dhaafiyay ayaa warbixintan waxa ku eegaya xikam aniga waxa la yiraahdaa Sheekh Maxamed ka waran bal jaad baad gacanta ku haysataa iyo bac kuusan jaadkan gacanta ku haysanaa marka magaaladu aad bay nabadgelyadu fiican tahay jaadkana meel walba waa lagu iibiyaa waran sababta maxaa keenay jaadku u raqiisay ee meel walba loogu iibiyo sababta waxa keenay ra'iisul wasaare fiican baa u dhashay nabadgelyadii ayuu sugay hadda ka hor jaadka gidaarada aad laguma geli jirin laakiin hadda wadooyinka bartankoodii baa maalmaha lagu gadaa wadooyinka bartankoodii baa lagu gadaa carradu waa nabad weeye ruux kasta wuxuu doon u iibsan karaa sidaas daraaddeed ilaahay baan ugu xamdiyeynaa abiy axmed iyo dowladdiisaba goobtii baan taagannahay jaadka lagu gadeeyey adeer magacaa aniga waxaa la yidhahdaa ibraahim abiy maxamed ka waran bal jaadkan goob walba lagu iibinayo jaadkani hadda ka hor runtii lama helayno dee waa la kala la'aa laakiin iminka waxaad mooddaa dadkii jaadka badan naga iibin jiray lacagta badan naga qaadi jiray inaan ninka ka raysannay oo iminka bannaanka iminka aad arkayso aanu ka iibsanayno qiimihii nalagaga siin jiray 400 markii la siin jiray iminka 200 baanu ku helnaa maxaa sabab u arrintaas waxa sabab u ah iminka walaaltinimada ka dhaxaysa labada deegaan oo iminka soo wanaagsananaysa waan gartay laakiin dadkii hore jaadka u geen jiray meena dhibaato badan ku ahan waxba dhibaato kuma aha ciddii dhibaato ka tirsanaysa aanu garan maayo laakiin cid waliba wixii ilaahay ugu qoray waa jaad aad raqiis u ah oo haddana jilicsan soo maaha jaadkani aad buu raqiis u yahay laakiin haddana wuu jilicsan yahay markaan
dhaqankiisiina uu leeyahay waxaan fadhinaa goobtii jaadka lagu iibinayay oo magaalada bartankeeda haatan ka hor xilligan laguma arki jirin jaad noocan ah in halkan lagu iibiyo gabdhaha keena gabadh ka mid ah ayaan jeclahay inaan wax yaroo waraysi la yeesho walaal magacaaga xukun baa la yidhahdaa walaal ka waran bal jaadkan iyo suu raqiisay iyo halka laga keeno halka laga keeno waxaan ku horta aad iyo aad buu fiican yahay laakiin iminka hadda marka dariiqa la soo marayo inta noolka iyo waxaan ku qarash inta ku baxaysa ciidaasay ka badan tahay laakiin dadku waxay sheegayaan inaad jaadkan aad ku gadaysaan qiimo aad u jaban waxaan ugu gadaynaa qiimaha aadka ugu jaban le markana waxaan ku qiimo jaban halkan laga iibiyo kolkii hore waxaan laga siin jiray 1,200 imika hadda laakiin 300 400 500 600 baan laga taas maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay daxagoodaas inuu qiimuhu ku jaban yahay canjeertayda aad iyo aad baan uga helaa waxaan cadceedda u fadhiya u manqabaad laakiin sidoo waad ku faraxsantihiin Soomaaliya inaad meel walba ku gadaan magaalada aad baan ugu faraxsanahay meesha meel walba inaan ku gadno ee madaxweynaha iyagoo noo ogolaaday dawladda laamida bartankeeda inaad ku gadaan laamida bartankeeda inaan ku gad haatan waxaan la joogaa gabdhihii asahan jaad ku iibin jiray walaal magacaaga saddexan hadaad ii sheegto aniga Muna Axmed baa la yiraahdaa waxaan ka eed sheeganaynaa anagu jaadkan dakhli baanu ka soo bixinaa cashuur baanu ka soo bixinaa maaliyad baanu bixinaa meel alla meel uu nagaga yimid ma garanayno cashuurtii anagoo soo bixino ba halkan la nagu dul xaraashaya 100 kiiloogi oo dhan konton waxaan samaynaa khasaaro wasaasaan u fadhfadhinaa oo aan garda duubanahay jaadkiinu isku mid baa kay gadayaan kaad gadaysaan jaadka iyagu isku mid ma aha jaadka iyagu jaadasha maxay haydaa waa isaawaday weeyaan dirraba laga keenaa waa jaadkii dirrabada weeyaan marka anagu iyo meelayogana kabaabiga laakiin dadkii baan soo warsan laakiin ragii cunay baan soo warsan waxay dhaheen mirqaanku waa isku mid oo aad baan ugu wanaagsanahay jaadka jaban u bayaku eeganay dimar dakhli dawladdu idin ka shubto jaadkiina uu idin qiimo jabiyay maxaa dawladda ugu dacwoon weydeen marka sabaq dadka jaadluhu horta way iska mashquulsan yihiin markasta waa maray maxay heday ka faarsan yihiin jaadkan ku mashquulsan yihiin iyo saacada imka armarna tagayaan halaalba male laakiin waan ku tala jirnaa inaanu cabanno oo u tagno maxay heday wasaaradii annaka xukuntay inaanu u tagno ayaanu maxay heday diyaar u nahay in jaadlihii intii soo cashuuranayso dhanba aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Xikam oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jigjiga maantay aan idin xasuusiyo caalamka waxa laga dabaldegayaa maalinta dhaqanka adduunka Soomaalida ayaa kamid ah dad xusaya dhaqanka iyo hidaha oo magaalada Nairobi bandhig ku soo bandhigaya bandhigaasi waxaa ka qayb galaya qoraal lagu magacaabo Maxamed Xasan Ciro wuxuu u warramay wariyahayaga Kawsar Maxamed sanadkan waa sanadkii 6aad ee la qabto sanad walba bisha May ayaa la qabtaa oo qolo waliba waxay soo diyaarisaa waxyaabaha ay hiddo ahaan u leedahay dhaqankeedii soo jireenka xuska marka intuu ka dhacayaa bandhigu wuxuu ka dhacayaa museumka ama madxafka qaranka ee magaalada Nairobi marka maxaa ahmiyad ah oo uu leeyahay bandhigan ahmiyadiisu waxay tahay in bulshooyinku iyagoo kala fog oo qaarado kala duwan ku nool ay wadaagi karaan ama ay isdhaafsan karaan qolada kale waxa dhaqan ahaan ay u leedahay oo marka qolo waliba ay ka baran karto dadka kale waxyaabo cusub oo hidahooda iyo noloshooda kamid ah marka muhiimadda uu leeyahay waxa weeye waa dadku inay isdhexgal samayn karaan iyo xiriir dhaqan marka walaale qolo kasta oo ka mid ah bulshooyinka aadamiga ee dunida guudkeeda ku dhaqanay waxay leedahay hidda iyo dhaqan iyada u gaar ah marka dadka Soomaalida ahna waxay hodan ku yihiin hidda iyo dhaqan soo jireen ahaa miyay jiraan wadamo kale oo ka soo qayb galaya bandhiga walaal way jiraan wadamo kale 5 qaaradood ee dunida ka wada socda ayaa ka soo qayb galaya haday Aasiya tahay Yurub haday tahay Afrika qaybaheeda kale haday tahay Latin America haday tahay sidoo kale waxa ka qayb galaya ururo kale oo iyaguna caalamiya iyo ururo arday leeyihiin sida bulshada afka Isbaanishka ku hadasho oo kale Kenya ku nool waan gartay Soomaali ahaan maxaa idin diyaar ah mise qorshahaba idin kugu jiro oo aad badoonaysaan inaad soo bandhigtaan annaga horta ka xarunta dhaqanka oo jaamac ahaan qorshaha meesha noogu jira wuxuu yahay inaan annagu keenno wixii agab dhaqameed ay Soomaalidu lahayd haday aan lahayd cunto haday aan lahayd waxyaabihii farsamada ahaa ee geedaha laga sameeyay ama aha barkinkii ha ahaato haamihii ha ahaato dhiilihii
marka waxaa noo qorshaysan agab dhaqameedyadaas si kale waxaa noo qorshaysan waxyaabihii dhaqanka ama hadday ciyaar ahaan lahayd iyo xitaa hadday ahaan lahayd fankeenii inaan iyaga lafteeda meesha kusoo bandhigno. waan gartay marka miyay jiraan gaar ahaan ee mas-uuliyiin lagu wado inay kasoo qayb galaan bandhiga iyose ka mid ah haddii jiraan? horta bandhigu waa mid loogu talagalay bulshada oo dhan, arday ha ahaado, qoys iyo caruurba ha ahaado, iyo siyaasiba ha ahaado. ka mas-uuliyiin soomaaliya ahaan safaarada soomaalida oo kale way ka warhaysaa barnaamijkan dhicitaankiisa. dabcan waa suurtagal marka hadda laakiin wax rasmiyaho aan ogahay oo mas-uuliyiin ah oo soomaali ah oo kasoo qaybgelaya ma garanayo. marka walaal qolo kasta ma dhaqankeeda inay soo bandhigto miyaa ulajeedadu ah mise waa tartanoo dabadeed ma abaalmarino baa jiri doono? may walaal horta tartan maaha, laakiin waxaa jira qolo waliba waxay doonaysaa wixeeda ay iyadu leedahay ee quruxda badan inay intay soo bandhigto ay dadka kalena ka gadho. qolo waliba hadal bay jeedsanaysaa oo ay ka hadlayso waxyaabaha waddankeedu hodanka ku yahay waxa laga helo, hadday meelo ku wanaagsan in la arko ay leeyihiin, deegaanka dhul ku wanaagsan, duur joogto yani waxyaabaha kalena waddan walba hadal yar buu yeelan doonaa. waa gartay, bal ugu dambeyn rajadiina ka waran intay la eg tahay ka Soomaali ahaan? wallaahi horta markaan ku sheego horta Soomaalidu dhinaca dhaqanka qani bay ku tahay, waayo annagu waa markii saddexaad ee aan qabanqaabadiisa leenahay 6 sano ee uu soo socday. sanadihii hore markaan barbar dhigno dhaqamadii kale ee la keenayay, dadku inta badan annaga aada noogu imaanayeen. annagu waxaan meesha keenayno iyo wadamadan kale ee safaaradahoodu ay meesha joogaan waxyaabaha ay keenayaan wax aada u kala duwan weeye. marka taasi waxay kutusaysaa sida dhaqanka Soomaalidu uu ka qanisan yahay dhaqamo badan oo kale oo dunida ka jira. yani marka rajada aan qabnaa waxay tahay in annaga Soomaali ahaan aan bulshooyinka kale bari karro cuntadeena. qoraa maxamed xasan ciro oo Nairobi ugu warramay wariyahayaga Kawthar Maxamed. isboortigan u galaynaa markan kubadda cagta ee siiba horyaalka Ingiriiska ee birta Axadda ah ayaa u dambaysa ilaa 20 kooxood ayaa wada ciyaaraya. inkastoo Manchester City ay qaadatay koobkii loo soo tartamayay tan iyo August kal hore, haddana ciyaaraha Axaddu saameyn weyn ayay leeyihiin. Saalimiin ayaa nooga warramaya. Saaliman, bal igu bilow kooxaha xoogga leh iyo kuwa daciifay beri ciyaarahaas. cabdinuurow kooxaha ciyaarta beri dhici doonta waxaa ka mid a ciyaaraha ugu xiisaha badan. kooxda Swansea waxay qarka u saaran tahay inay dhacdo oo ay ka harto horyaalka Premier League sanadka soo socda. 33 dhibcood ayay leedahay. kooxda iyadoo ka horeysa ee ay rabto inay soo qabato ay booska kala baxdana waa Southampton oo waxay leedahay 36 dhibcood. marka waxaa laga rabaa Swansea ciyaarta berito ay ciyaari doonto oo ay la ciyaari doonto Stoke oo iyadoo hore u galbatay inay 10 gool kaga badiso ama inay 5 gool ay kaga badiso Southampton lagaga badiyo 5 gool, taas oo ah wax mucjiso ah oo inta badan aan dhici karin. marka kooxahaasi marka laga reebo labadaasi kooxood oo isku haysta oo Southampton ay u badan tahay inay soo baxdo, waxaa horeyba u baxay kooxda West Brom iyo kooxda Stoke oo ka haray iyagu taraankii horyaalka Premier League. kooxaha afarta ah ee ugu sareeya horyaalka hogaaminaya dabcan koobkii waxaa horey ula tegay kooxda Man City 97 dhibcood ayay leedahay. haddii ay beri badisana waxa ay gaaraysaa 100 dhibcood. 100kaas dhibcoodna waxaa la leeyahay taariikh cusub oo rikoor cusub ah ayay u dhigaysaa horyaalka Premier League in ay dhibcahaasi ku qaado, iyo weliba xagga goolasha oo ay leedahay 78 gool. waxaa ku soo xigay cabdinuurow Man United oo 78 dhibcood leh. Tottenham ayaa 74 dhibcood leh. haddii ay sidaasi kusii hogaamisa oo beri Liverpool oo iyaduna ciyaarayso oo 2 dhibcood u dhexeeyaan aanay ciyaarta wax ka bedelina, waxa ay noqonaysaa Tottenham kooxaha London ee Premier League ee ugu sareeya oo in muddo ay heerkaasi ku soo baxdo. dhinaca kale haddii aanu fiirino laakiin arrin kaloo jiqaha jirta oo kaalinta afraad Liverpool waa lagu haystaa. ciyaarta Chelsea iyo Liverpool oo laba kooxood la kala ciyaaraya natiijadeeda ay ku xiranta. Liverpool waxa ay leedahay 72 dhibcood, Chelsea 70 dhibcood ayay leedahay. marka halkaas waxa sida aad sheegtay waa la isku haystaa. haddii Chelsea badiso hal dhibic bay dhaafaysaa, afraad bay galaysaa. haddii Liverpool ay badisana Chelsea waa ku daysay. Liverpool ba afarta kooxood marka waa kuwa horyaalka Liverpool marka waxay la ciyaari doontaa kooxda Brighton ayay la ciyaari doontaa, halka markaasi Chelsea ay la ciyaari doonto Newcastle United oo ah waliba koox adag. marka waxay ku xiran tahay in Liverpool laga badiyo, Chelsea ay badiso. hase yeeshee Liverpool wana ognahayo
champion league lama yaraysan karo kooxaha yaryar laftoodu lama yaraysan marka berri waxaa dhici doona 20 ciyaarood ayaa dhici doona oo ciyaar 40 kooxood ayaa 20 ciyaarood ayaa dhici doonta 20kaas ciyaaroodna waxa ay ugu dambeyn doonaan horyaalkii sanadkan oo lagu soo gabagabayn doono koobkiina si rasmi ah ayaa loogu wareejin doonaa maalinta beritaa kooxda Man City aad iyo aad baad u hansan tahay saalimin iyo isboortigana waxa uu u dambeeyey barnaamijkii oo cabdixaafid isku soo dubariday waa inoo caawa 9 inta ka horeysa waa ku mahadsantihiin dhegaysiga tan iyo kulankeena dambe nabaday